السلام عليكم سودو هذا صاحبيال سودو سوق أونلاين وابليكيشن عصري أو كوسالي إنك صفر أو إبسط على أبت هذا قاب أونلاين هذا ببلاي ستور يا أبل ستور كل سودو هذه وكوريا السوق كدب سوشيال أبليكيشن كذا صاحب من كذا أبليكيشن كسوشيال بتوينير بيسوريتشن إنستال من كل ما يوحات سيك تورتا أوبن هذا بصاحب وحاقة سبعين فرطة أكون أديكو سودو واجلني إيميل كذا هذا إيميل كذا دورة أد سودو واجلني هذا أبليكيشن كدب صاحب من كذا إيميل كذا سيد دورته waxaa kuu soo bixi doonta wajahada koowaad haddaba akoonkaagu active ma aha dad rabti inaad ku dhex iibiso meesha request to be seller ay ku qoran tahay waa meesha loogu talagalay inaad ku geliso laysin ganacsigaaga adigoo halkaa gelinaya kuna soo upload gareynaya layska ganacsigaaga kadib upload baad meesha taabanaysaa waxaanad soo gelinaysaa shati ganacsiga ee laysinka saaxiib kadib marka aad soo geliso laysinkaaga adigoo sawir ahaan ku haya upload in your research kadib waxaad taaban doontaa submit for review haddaba waxay tagi doontaa codsigaaga shirkadda hadduu documentigaaga saxan yahay waxaa lagu soo jawaabi doonaa daqiiqado kadib hadda waad aragtaa wali waa biddingi request to be seller waa inay isbedeshaa oo lagu fasaxaa haddaba hambali akoonkaaga sida dhibka yar ayaa lagu fasaxayaa kaliya waa haddaad haysato warqad saxan oo leasing ah haddaba si aad ugu dhex iibiso waa inaad lambarkaaga active ka dhigataa adiga oo gelinaya lambarkaaga caadiga ah si macaamiishaadu kugu soo wacaan sidoo kale aad WhatsApp-ka lagala soo hadla haddaba verifier day halka waxa ku soo dhacay koodka marka lambarkaaga geliso 6 xaraf ee koodka ee ku soo dhacaya waa inaad gelisaa verifier taabo sida waxaad ugu dartay lambarkaaga sidoo kale meesha store name waa meesha magacaaga dukaanka waxaad ku qoraysaa magacaada ugu talagashay dukaanka hadda aniga waxaan ku qoray aflax shop adigana waxaad ku qorisaa magaca dukaankaaga ee rabtay qaab online inaad ugu iibiso ama magaca dukaankaaga saxda ah kadib save ayaa taabanaysaa sida waxaad ku heshay akoon aad ku ganacsato hadda waad aragtaa vendor shop inay ku soo baxday adigoo si dhib yar ugu iibin kara alaabtaada markii hore sida biddingi ah meelaha buttonka laga soo daro suuqa kuma ogoleen hadda laakiin waa lagu fasaxay haddii aad soo geliso documentigaaga saxan haddaba waxaynu dhahaynaa add product inaga oo ku soo daraynaa productigeena sida looguna soo darawiyaan hadda marka anigu add productiga meesha kore waxaan gelin doonaa qalabka aan hayo marka hadda anigu waxaan gelin doonaa mobile ee 15 adna wax walba hayso halka magaciisa waa inaad ku qortaa sidoo kale meesha price waa inaad gelisaa qiimaha aad ku iibinayso hadda 18 kuma dhahay sidoo kale meesha negotiation-ka waa meesha ii sheegay ma wada hadal ba halka marka iyada waad ka boodi mar walba marka meesha saaxiib halkan waa description waa shayga aad iibinayso hadduu mobile electronic ama dhar wuxuu doono waa meesha aad ku qori doonto description-kiisa haddaba meeshan ma la soo isticmaalay mise waa cusayba waa inaad iyadana doorataa haddaba stock meeshan waa meesha aad gelin doonto inta xabeed hayso ma hal xabaad haysaa ma saddex xabaad haysaa ma afar xabaad haysaa si qofkan macmiilkaaga ah haddii uu dhawaan uu kula soo hadlo inay ka dhamaadeen in kale meeshan category waa meesha ugu muhiimsan saaxiib meeshan waa wax walba oo haysi meesha aad ka dooranay hadda marka inagu waxaynu hayno waa electronic oo waxaynu dadka u soo bandhigi doono electronic mobile baynu sii dooranaa marka halkan upload waxaad soo gelinaysaa sawirka shayga aad rabtay inaad la wadaagtay asxaabtaada kadib waxaad taaban doontaa add product hadda intaas oo dhan dhameysay sida waxa suuqa kuugu galay oo si online ah lagaga iibsan doonaa shay aad u baaneed hadduu mobile noqdo iyo hadduu wax walba noqdo hadda aan ku tuso waka meeshan product waxa hadda durba fiirsay 3 qof haddaad u baahantay dib waad u bedeli kartaa sidoo kale haddaad u baahantay unpublication waad dhihi kartaa oo waad iska bixi kartaa haddaad u baahantay edit waad dhihi kartaa haddaba haddayna tuso in postigeeni productigeeni aynu suuqa la wadaagaynay qaabka online-ka haddaba waka deenu hoos u wadno mobile ee 15 waan arkaynaa postigii aan soo post gareynay kaliya sidan dhibka yarna waxa ku heli karo qofka kaliya shatigiisa ganacsiga la xaqiijiyay oo ka WhatsApp lambarka iyo lambarkaaga caadiga labada meelood ee lagala soo xiriiri karo kuwana waxa qasab ah lambarkii aad verifier ka dhiganaysa sidoo kale meesha product waa markii ii sheegay aad soo post gareynayso mar walba waxaad u baahan tahay sidoo kale meesha balance waa meesha aad kala soconayso balancegaaga orderna waa meesha aad ku ogaanayso waxa laga soo dalbaday sidoo kale meeshan product waa meesha iyadana suuqa aad markaad u baahan tahay shay cusub inaad soo geliso aad taaban doonto haddaba haddaan ku tuso qof wuxuu soo post gareeyay meeshan hadda Rayaan
haddii aad saa u gujiso waxaad arki doontaa qofkan shatigiisa ganacsiga iyo adeegga uu hayo. marka waa qasab saaxiib shatigaaga ganacsiga mar walba inaad heli karto si aad application lagugu fasaxo qaab online ah aad u iibiso alaabtaada. haddaba haddaynu taabano lambarka, qaabkaas lambarka waa lambarkiisa aad ka wici doonto, adigana lagaa soo wici doono marka aad lambarkaaga ku darto. sidoo kale WhatsApp-ka waa meesha lagaala soo xiriiri doono marka la taabto saaxiib. hadda waa sidaa u dhibka yar adigoo qofka ku kala iibsanaya si dhib yar inkoo kaliya aaminitaankuna ay tahay kaliya shatiga ganacsiga ee lagaa rabo si lagu xaqiijiyo inaad tahay qof dukaanle sax ah. haddaba waxaad u baahan tahay waxaad searchida ku qoraysaa ama 2 xaraf ama kuwa mar walba waxaad u baahan tahay iyadoo xarfo yar yar aad ku qoraysaa. hadda halka haddaad iPhone ku qorto waxaa kuu soo bixi doono iPhone-nada meesha aad ka raaci doonto marka sida dhibka yar uguna adeego. haddaba application-ka casriga ah ee suuq online waxaad ka heli doontaa Play Store iyo Apple Store. wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala soo xiriiri doontaa WhatsApp lambarka